doorka uu ku lahaan uu ka qaatay arrinta kaleento oo dhexdhexaadinta socoto waa soo dhaweynaynaa in la dhexdhexaadiyo laakiin waa in cadaalad la helaa cadaalad waa muhiim ma ahan midda hadda dhacdo keliya waxaan u baqaynaa walaalaheen iyo carruurtayna haddii waddanka saas oo sii ahaado hay'adihiisa ammaankii madaxdiisa haddii ay noocyadan ay samaynayaan waa khatar marka waxaan leeyahay khatarta ha laga hortago ninkii dembiga galana cadaaladda ha lagu waafaqo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiciise ali maxamuud oo degan dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira haddaan ka hadlo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee soo shacbaxay isbuucyadii ugu dambeeyey khilaafkaas oo xalintiisa aad loogu mashquulsanaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay qayb weyn ay ka ahaayeen madaxweynaha koonfur galbeed waxaan aaminsanahay inuu khilaafkaasi xilligiisu uu yahay oo laisku maandhaafsan yahay laba qodob arrimo la xiriira dhanka amniga iyo arrimo la xiriira dhanka siyaasadda arrimaha dhanka amniga la xiriira waxaa taliyayaasha laga magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidaas oo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday isagoo waddo xaqa iyo xal ugu raadinaya sarkaaladii mise u shaqaynaysay ee ay baahisay nista inay gacanta al-shabaab ku baxday waxaan aaminsanahay gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee laga kala qaaday labada xafiis ee dalka ugu sarreeya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee iska hor imanayay in waddada saxda uu ku taagan yahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxaana taa u sababeynayaa ra-iisul wasaaraha dastuurka waxaa ugu xusan salaaxiyaad iyo awoodo fara badan awoodihiisiina waxaa usoo raacay awoodo kale oo loogu daray ayna ugu muhiimsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hago arrimaha doorashooyinka iyo jahaynta siyaasadda dalka sidaas oo kale in xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo awoodaha amniga doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu isagoo labadaba ka duulaya mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka iyo xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka culays kasta oo yimaadana waqtigan la joogo waxaa qaadanaya xafiiskiisa iyo golaha xukuumadda ee la shaqaynaya saa daraaddeed waxaan aaminsanahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday inay yihiin tallaabooyin saxa gaar ahaan gabadhii ikraan tahliil ee nise baahisay inay gacanta al-shabaab ka baxday tallaabooyinka uu ka qaaday tallaabooyinka dhanka amniga ah oo salaaxiyaadkii la siiyay qayb ka tahay haddii aan ka hadlo khilaafkan iyo waqtiga hadda uu taagan yahayna maadaama xilli xasaasi ay tahay waxaan aada ugula talin lahaa labada xafiisba in mid kastaba uu laabta ku hayo waqtigan xasaasiga ee la joogo iyo dalku sida ugu baahan yahay in marxaladan laga saaro oo la gaarsiiyo xilli doorashada la bilaabay ay dhammaystirmaan dalku uu yeesho xukuumad rasmiya oo muddaxileed rasmiya haysata in khilaafkan iyo kala maandhaafkan lasoo afjaro lana dhammaystiro doorashooyinkii la bilaabay xafiis kastana uu ka tanaasulo admaacda shakhsiga oo u tanaasulo danta dalka iyo dadka saas ayaan kula talin lahaa labada xafiisba waxaana u rajaynayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo dal iyo dibad meel kastay joogaanba inuu ilaahay ka samata saaro maalmahan adag dalkana uu ka dhaliyo dowlad caadila oo guud ahaan dalka iyo dadka u adeegta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo codadkooda noogu soo gudbiyey khadka whatsapp markaana dib ugu laabanno dhegaystayaasha na soo wacay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ayuub nur maxamuud waxaan joogaa sood suudaan caasimadeeda jubba waan ku dhowahay walaal ayuubow waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijka bal aragtidaada ku aadan khilaafka madaxda soomaalida bal inoo faahfaahi waxay ila tahay barnaamijka khilaafka ee madaxda soomaalida inuu asalkiisa u yahay